أقول مقعك مسكين ما مع وسلي اسكال تكانك مع وسلي مع وسلي اسكال ما ها تكانك مع وسلي waa ku soo dhawaada ninka odayga Shariifku wuxuu yiri meeshan hadda kor taariikh ay qabstaan kaaga sheekeynaya magaaladii waxa soo xasuusta ma taqaana oo 4 bilood صح dabaq kala xabad la saarnaa arkays adi والله عاد انا في لايف والله ده انت كشي markay dikana ana inta galan ordisad waxaan in restaurant waxa la igu sheegay in lagu gado xataa عادي maaha ma fahantin Soomaalida baash aad ugu dhimataa so anyway meeshan aan gali doonaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا أصحاب الوقت أدبا ذي السلامي مقال كان waxaa idinku tusin doonaa meel la magac baxday ceelgaabta ceelgaabta aad taqaanay ee Soomaaliya ma ahan ceelgaabtan waxa weyn Canada Toronto ku taala markay u weertahay in ka badan 100 dukaamadii oo dhan Soomaali lahaayeen ee waliba maamooyinka Soomaalida ee aad ku shaqada u jeclaa meesha soo wada imaadeen kala ilaabeen meesha u qurxiyeen asla aragna gudaha gali doonaa sida u shaqeystaa maamooyinka iyo magaca sababta loogu bixiyay meesha muuqaalkan ku daawan doonaa asla aragna dhankiina waxaan rajaynayaa maamooyin Soomaaliyeed maadaama muuqaalkoodu uu yahay aan ku soo sameynay inaan kor u qaadi doontaan waa gali doonaa gudaha waa isla arki doonaa qaabka uu sameeysan tahay iyo waxa ay ku gadaan let's go naha qoraniyo hubqaadka aqdowrkiyo eray samaanta malawa dhowr alcayn halayf ka soo yargaadhay naha qoraniyo hubqaadka aqdowrkiyo eray samaanta malawa dhowr alcayn halayf ka soo yargaadhay ماشي وحال يرادا سالمين فاشل ميا سالمين فاشل قلبيga xarun baan ka siiyay xeraanuga oodaymaanka xuliya boqortooy weeye tuntiga dukaanka waa dukaankii saalimiin waa u jeedin ku soo dhawaada yaa reer halgan waa taqaaniin dukaankan saalimiin hadaa maqashid iska fahan alaabta waa u jeedin waa seel waxa walba ceelgaab ku yaala maarti guruufay ku taala Toronto ku taala soo dhawaada waa Toronto saalimiin ما شاء الله مقعك مسكين ما مع وسلي اسكال تكانك مع وسلي مع وسلي اسكال ما ها تكانك مع وسلي ماشي waxaan u maleynaa inay leeyihiin Djibouti xalaga Djibouti ku soo waran oo meesha waa la isku imaada Soomaali dhan waa isugu timaadaya عادي ما صح ان waxa weeyaan wali meesha ku dhex jirnaa marka meesha unit kana waa 14 maamadeena iyadan iska leh xagan maamooyin Soomaali baa ka wada shaqeysta ma sha Allah waxa weeyaan kali laab way fikireen oo kali laab u shaqeysana assalaamu calaykum haw waxir muuqaal baan wadnay marka meherdan duubeynay marka ma kugu dari karnaa okay so meherda aad u qurux badan tahay ma sha Allah waxaan aad ya sax جولي جوان هاينا قون ذهب كدلقنا وان هاينا وحي قبلها حرينا ينو وهيسا قبلها سر عبايران هاينا صح وحول عنبوران هاينا وحق سوا هاينا عبايدي وحدن عبايدي وقوع عنبوردي وقوع waxa leedahay gabar walba Soomaali waxay u baahan tahay meeshan kama weyneed ya وان هاينا وحق waxan waa maxay حنا وي حني اللي صار له حتى اعلانك وهيلسن يعني حنا هذا قرنين حنا هو اسكي عذركي دامود سو حرب ويلا سو ما شاء الله ماشن ومال اد وناكسن اديا والله هي قرصاري والله هي او نايس ما شاء الله مهرده الله ku barakeeyo hooyo shaqaysanaysa taa hooyo Soomaaliyeed aad baan ugu faraxsanahay ma insha Allah way hagaagaysaa in salon xataa ku yaala halkaabta caadi ما شاء الله مهرد كله مهرده واحد مداوى إني سكوير إيجي لكن وكلا واسع سينهن waxaan ku yir suuqa bakaaraha joogtaaba caadi oo meeshan xataa laba albaab leedahay xagga ma laga bixi karaa xataa ya oh yes inta ka soo dhaxbaysa xagga sagal xagga ka soo bixi ma sha Allah xagga unit numberkiisa meesha unit numberkiisa markay okay السلام عليكم هوي الحمد لله ما شاء الله هوي waxaan wadaa muuqaal aan duubaya oo meeshan area aan ka duubaya ma sha Allah hooyooyin Soomaali badan xagga meherada ku leh soo marka hooyo waxaan jeclaan lahaa inaad muuqaalkan aad laba area waxa ka dhahdo inta asxaabta inagu xiran ama Soomaalida badan qadiisan horta assalaamu calaykum suuq ugu qadiisan suuqan
وسوق القابل هايو ما شاء الله ركسدنا كويا مرتين قلوف ركسدنا كنا لا مركا الحمد لله لعبت برانكي تالي وسو حري اسكد سميس واي يرد سميس واي مركا ولا هبل وكا وحكستوان هاينا wax walbo ay gabar Soomaali isku qurxin lahayd way yeelan meesha hatta waxa wada wixii qoorta la gashan xataa way yeelan hooyo ذهب يا الجولري يا وحكست كريم قبل suuq waa qadiimi ay ugu dhahday ها قديمي macnaha ceelgaabta maxaa loogu magac daray ma noo sheegi kartaa ceelgaabta Soomaaliya loogu magac daray macnaha dadkii hore joogo oo ceelgaabta ah بيزانيا لقى هلا هالكاني ما شاء الله وحكست وباهنتا والقى نفنول بالقى هلا ما شاء الله mar goormee la furaas dhigi kartaa goormee la furaas dhigi meesha waxaan furnay 20 okay macnaha marka waxa leedahay meesha ceelgaabta waxay qadiimi ula tahay magacaas oo baxsanay dadka hore joogo ugu horeeyay waayo ee Soomaalida sameeysato ma sha Allah waa suuq ugu horeeyay toran laga furo ceelgaabta la dhaho marka waxa la furay 2000 la furay waxaan furnaa 12 subaxdii furnaa habeenkiina 10 waaxid ما شاء الله أونسي wax walba waa gadaa hooyo أونسي baan gadnaa waxaan la gadin ma jirto ما شاء الله waa arkaya hooyo oo maamo Soomaaliyeed ba xagaas ka hooyo magaca magacayga caasho ما شاء الله hooyadan namba Soomaaliyeed weyn hala soo boqdo waa dadkii hore ceelgaabta magaca dadka sameeyay ma kamid tahay magacaas dadka magaca inta ka sameeyay ku jirta ما شاء الله guuleysto in sha Allah هاي إن شاء الله هاي أو ما شاء الله وحوين دكان كان كلنا حوش ستورة اللي هذا ما مدري شيء يقول شكتي حتى هيدا دقنك ليش أركيا بالكان تالا واو حتى الدوارة يلا أو حوش ستورة هذا يا ما شاء الله حوش ستورة الله مياه حوش ستور أوكي سو تذكر بدن كذا كأديكتن ما شاء الله ستور نمبر 17 وين بس وديار هو إن شاء الله وكوسا بوقندنا ماشان وحي لا هذا الدكان ما أدو فربنا هذا ماشان aan joogno waxa weyn unit 3 la yiraahdaa inuu you can gaar wax walba arid cabaayadaha Soomaalida daymadaadan ku dawooba kaan dugsanayo meeshan waxa keenaysaa cabaayadaha aan caadiga ahayn maamo Soomaaliyada iska leh ayadana waxay iga codsatay maadaama muuqaalkan sameeynayo waxay tiri meeshida igu dar لكن بوركا وحوين سيف على ما أركاي وحوين سهرة كقرن مع نويني وضطها ما مضى سهرة ضل مرالي هذا وحول بوت كيلي ساميشن وحكا قدرن يا أركي ساعة حتى الذهب ما واحد ذهب عمله ماشي على حتى وجيده ما شاء الله وين وحي قبل اسكو قرحنا حتى ولا قضاء توقع شقة أيبو كادرين هو الكوا وين هاي فاهمي سهل ومال يعني دكامديه يودن ما قلوه صاحب وحوين ماشي waxa la suuq keenay calamada Soomaalida like inkasto Soomaali hal calan oo leeyahay laakiin meeshan waxa weyn alaabtii koonfur galbeed Puntland qaatumo this qaatumo tan waa galmudug laakiin kii wada mideynay buluug ahaa meesha ma yaalo kullu ma aqaan inuu xariisan yahay waxa kale xataa arkaya meeshan waa meel aad u kala kacsan حتى فنانadu حتى la qaatum state alaabtii waa kubadda ku ciyaar kara qaatum kuwaash kubadda ku ciyaar la xataa taala asleed caadi ma waxa kale soo labeynay waxyaabay dumarka ay xiran lahaayeen حتى qoorta suran lahaay cabaayadihii oo dhan oo dhameystiran ayaa wadiyaal meesha caadi ma waxa igu yaab badan calamadii oo dhan ee wadanka yaaleen xaqana loo keenay like alaabtii fardaha حتى sayidka ya أرلادي بسم الله الرحمن حتى أرلادي ويا له ليش وحوين wax walbo ay Soomaali ay leedahay ha noqoto calanka waxay xiran lahayd dumarka everything way la kubada ciyaar saareer qaatuma tahay ya wad kana joogto wilo Toronto soo aadi kartaa laabtan xiranaysa brad laabtan xiranaysa waxaween macalbuumiisu wataa faa laakiin gadaal waxa ugu soo kala waa saaxib meesha waa meel kale ilaab u sameeysan ورا معناها كريمياش حتى ويالا اوكي بابايا عرفتها بابايا عاده laga sameeyo umaleena ya oo si baalka lagu shubanaayay kala ka way hore la isticmaal jiray arono ceel gaabta markii lagu yiraahdo dukaamo badan ay ku yaalaan bal hadda kana soo booqanay exactly yani ku kala waa aadi doonaa waa isla arki doonaa muuqaalkan ku wada daaban doonaa ilaa halkan waa arki kartaa markaysa
ورمع المدوبة سيدي سوماليا بأركي حتى ويلا xubnaha qoran iyo hubbaadka aqdhowrkiyo eray samaanta malaawa dhowral cayn halayf ka soo yargaadhay qalbiga xarun baan ka siiyey xeraan uga ooday meeshan waa meel Soomaaliya xataa waa arkaysaa waryaa akbar waryaa abti caadi ma Soomaalida meesha waa shaqaysanaysaa qalbiga xarun baan ka siiyey xeraan uga ooday maanka qalbi doojay daymadaadaan ku dawooba kaan dugsanayo dooqa xaashaqa ayagu kaa daray waxaan cabaar soconaba wali wax ku dhex jirnaa Soomaalida agaarkeeda waxaan kala soo aadnay hadda muqaaxi because gaaja naqbatayno marka cabaar socotid waa dareemi kartaa calanka Soomaaliya calanka Kanada xataa ku yaalan waxaan la dhahaa magaceeda Ibi restaurant muqaaxidan Ibi restaurant waxa la igu sheegay in lagu gado xataa caadi maaha ma fahantin waxa ay la socdo shariifka weyn adduunka waxa ku leeyahay aniga hilibka marka la soo dhigay kalaankalki waxaas waxa ka doortaa bahashaas ma fahantin macnaha kali la muwaadin Soomaali waa caawinno macnaha Soomaalida bahashaas aad ugu dhimataa so anyway meeshaan aan gali doonaa waxa kale igu dar dabaqaas iyo dabaqan kale meesha ku dhigan waxa la dhahay hadda ka hor waa la isku xabadiyay xataa shariif maxaa tiri waa la isku xabadiyaa waa la isku xabadiyay anagoo u jeedno haye sidii waxa soo xasuusta mataqaan haye xamar dagaaladii ma aragtay oo dagaaladii waxa soo xasuusta mataqaan oo 4 bilood صح dabaq kale xabad la saarnaa arkaysa adi والله عاد انا في لايفها لايف والله ده انت كشي مركز كنا انا انت كلام اورد يزيد انت انا قلنا لسو غارن اورد قدوك قدع والله maxay laakiin isku xabadeeneen saaxib ma aqaaniyo dad gangs waa iyaga saraadsanaa laakiin xaqiiqda jirta waxay tahay Canada iyo Mareykanka sometimes waa isku xabadeeyaa waxaan is xabadeeyaa waxa weyn dadka la yiraahdo drugsku ka ganacsada marka dadkaas laakiin haddii aad tahay qof nadiif ah oo aan waxba hawshaas shaqo ku lahayn cid adiga kugu mashquulaysa ama ku taabanaysa ma jirto haddaad street u shaqaysatid wadankani street u noolaanaysa si nadiif u noolaanaysa marka insha Allah meeshaan aan gali doonaa muqaaxada cuntada waxaan asaragno waa muqaaxi ana caadi ahayn shariif ah waa kaasa wuxuu noo dalbayaa cashadii soo meeshaan waxa weyn waxaad ka helaysaa xataa caaniga geela Soomaaliya abti wax walbaad ka heli brother wax walba Soomaaliya leedahay keeg xaqas ku diyaarsan yahay xalwada Soomaalida ahayd waxaan ku cabitaanadii briiskii ma fahamsan waa meel aad iyo aad diyaarsan fadhiga xataa waa kana fadhiyadeedii ATM waxa kaaga daran lacagta cash ma hayna waxa ma hayna ma soconays brother isi xataa ATM ki meeshu yaala brother so wadad maxay yeelay u soo shaqo tagay meesha dad Soomaaliya iska leh saaxib guul Allah ka la dheena wax kala dheena ma lahan ilaa inta xataa fadhigooda waa weyn ilaa inta في fadhigooda meeshu leeyahay wow marka Ilaahay u barakeeyo Soomaalida waa xawaan aad ugu faraxsan inay shaqaystaan dulinimo anaga ka hor ma jirna isleedahay waraa fiire waxaanu qaanday noo keenay waraa laakiin midda ku jirta meeshan Kanada midda dadka la soo soo hadda kugu dilo ka hor ay dambiga loo istaamo waxaas qalad waa ka hor so anyway marqaasan loo keenay gabadhu waxay noo sheegtay marqaan inuu yahay marq dad kana inuu yahay marq duwaaga shariif maxay ku sheegtay gabadha marqayadan ana arkayso waa hilib dad anyway marqaan wuxuu la socdaa caluleeda marka dibadda lagu kala keenaa kana waxa ku jiro balkan okay Starbucks balkiisa unina waa cabitaan smoothie ah inta lagu soo shubay laakiin ku kala balkan lagu soo shubay cabitaanka way kana lagu soo shubay yaa kan gooni waa special waa oo arki doonaa kuleyba shariifka aan masuulka waxan isaga noo dalbay oo ninkaan keen waa ninkii maxaa la yiraahdaa Canada caluleeda ani asaga ku cunay nin kale oo cunay ma jirto labadeenan iska horaan wadana aniga noo xiriirtay muqaaxada kaliya ay keli kartaa caluleeda waa special after a long time cuntadii waa la keenay paastadan cid haysaga sheegina la yiraahdaa alaabtaana waxa weyn waa hilib yaro lagu dubay dhuxusha ama T-bone si loo yaqaano caluleeda waa kaasa shariif ninkaan test ka bixinay baashi shariif sewa عاد ما يا على ليه صار لوش الشيء اللي صاحب والله صاحب كل إلا بوان فهمتي ماشي إبيا اللي هذا عادي ما سو عشان عاو وكل كعسنتها
cid ha isaga sheegin caloolyadaas iyo bahashaan ha dilinaa